tababar muddo 2 cisho u socday 25 xubnood ka kala socda gobolada Sool iyo Buuhoodle oo lagu barayay habka ay muhiimadda ay u leedahay wax qorista xisaabta iyo ganacsigaba ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood. tababarkaasi oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Sool Maxamuud Axmed Maxamed iyo waliba maayarka degmada Laascaanood. warayna waxa halkaasi ka hadlay sarkaal ka socda hay'adda CARE Ibrahim Ducaale Cawke oo ka waramay ujeedada ay u qabteen labada cisho. waxayna ka hadlay mid kamid ah dadkii ka faa'iideystay tababarkan u socday muddada labada cisho. xiritaanka seminaarka labada cisho socday oo ujeedadu ahayd in kor loogu qaado aqoonta waxbarashada dumaro ama ururo aan la shaqeynay muddo fara badan ay hay'adda CARE la shaqeynaysay kuwaas oo ku taxalluqay hawshan casriyeynta arrimaha hagbadaha because away sida aad la socotaan tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ma laha bangiyo ay lacag ku kaydsadaan. waxaa muhiim noqotay in dadkii iyagu lacagtii ay isku kaydsadaan si ay iyagu u kala amahdaan si ay horumar ugu helaan. arrintaas waxay sababtay inaanu annaguna insha Allah hay'adda CARE danahay aanu siin doono xoogaa kobcin dhaqaale oo waxyaabaha ay soo qorteen ah. taas marka macnaheedu waxa weeye qofkii markuu business galo haddii aanay waxna qoraal jirin oo haddaan qofkii xisaabaadkii iyo aqoontii xisaabaadka aanu garanayn qofkii ma garanayo khasaarihiisii ma garanayo faa'iidadiisii ma garanayo diintii laga qaatay ma garanayo systemkan casriga ah ee saadka wax loogu kala diranayo haddaan qofkii aqoontii waxbarasho lahayn ama xisaabeed lahayn wax badan baa kalmaya. marka si taas loo helo muddadii labada cisho aan la joogno waxaan ku kala faa'iideysanay inaanu fahanno muhiimadda ay leedahay qoraal ama bookkeeping record-keeping waxa la yiraahdo afka qaad lagu yiraahdo muhiim inoo fulisay hay'adda CARE taas oo ay ku mahadsan tahay wixii Ilaahay keenayna dawaa wixii Ilaahay keenay oo ay niyadu aan hay'addu shaqo ku lahayn laakiin markii hore workshop-kii noo qabatay ama maxadii sanduuqyada ay noo sameysay mid ku mahadsanay oo maxadii tustay sida yani wax loo dhigto ama wax loo kala amaado ama safe loo dhigto ayay ahayd oo wayna ku mahadsan tahay hadeero ay tahayna maxadii sida uu gudoomiyaha maxadii CARE ba u sheegay Cawke lacagihii wax ka baxay sanduuqyadii iyo wax ku jira intaba way leeyihiin taasna laga gacan maayo hay'adda haddii ay lacagtu socon lahayd anaga faa'iido noo ah lahayd haddii ay hadeerto maxadii sanduuqa ku jirtana hay'adina waxa uu qabanaysaa anagana waxna qaban mayso maxadii markaa midna cidna lagu ma eedayn karo wixii Ilaahay xaqiista ka yimid. maayarka degmada iyo gooriyo maayarka degmada Laascaanood ayaa labadooduba ku booriyay bulshada inay gaarsiiyaan dadkii ay goobihii ay ka yimaadeen tababarkan. salaan kadib waxaan soo jeedinayaa hay'adda CARE iyo ka soo qaybgalayaasha hay'addan CARE oo ilaa 2014 ka shaqeynaysay nooca kaydka ama dhigaalka sida bangiyada kale hagbadaha oo mahad celinaynaa. waxaana laga bartay waxyaalo badan. iminkana wuxuu seminaarkan ku saabsanaa habka xisaabaadka. qofku haddii uusan xisaabta aqoonin ama uusan wax qori karaynin wuxuu qasaaray iyo wuxuu faa'iiday qaayimada wax ku soo iibsaday ta uu wax ku iibiyay waxa haraaga u ah raasamaalkiisii hore faa'iidadiisa ma kala garanayo. marka aad iyo aad baad mahadsantihiin tababarka saa u qaateen saa waqtigiina ugu soo horteen aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaad idinku mahadnaqaynaa. waxaan kaloo mahadnaqayaa hay'adda CARE iyo injineer Cawke oo deegaankan mar walba ku soo noqnoqda hawlo badan oo hadday tahay tan lacagaha hadday tahay ceelasha oo laga dhigay muxuu ahaa solar system oo naaftadii laga guuray iyo waxyaabo badan hay'adda CARE qabatay iyo Cawke aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa. gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Sool ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in hay'adda CARE ay ka mid tahay hay'adaha waxtarka u leh guud ahaanba gobolka Sool. waxaan runtii ka soo qayb gasheen seminaarkan waqtiga soo horteen u soo dhawaanugulaateen aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa. runtii waa kana sii badantii maanta ku wandeen haba maanta aan hadbada ku jiro waa kana sii badantii maanta waxaa kana sii badantii xogaaba idinku isku ceeshataan
وانا وانا سي بدن runtii kuwa badan baan haysan maanta fursadahan yar ee chance ka haystaan helin oo bal isku day inay xogaa qaban kartaan kuwa qabtay hay'ado badan runtii qabtay wax waa jiraan gobolka oo iyaga ugu mahadnaqaan runtii wax qabteen qabadka balan qabteen kuwa aan suluugana waa jiraan وبرخ عمر أحمد البانت قرن كجمهورية الصوماليلان لا سعانود